daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta Bollywoodka. Barnaamijka falaqaynta Bollywoodka waxaa ku soo qaadanaynaa Bollywood superstar Shah Rukh Khan ayaa booqday Bollywood superstar-kii hore Dilip Kumar xilli rugcataagan xaaladiisa caafimaad laga deerinayay dhawaanahan. Dilip Kumar ayaa laga soo bixiyay isbitaal wuxuuna SRK ku booqday kurkiisa ku yaal xaafadda Bantara ee magaalada Mumbai. mudane Dilip Kumar xaaskiisa Saira Banu ayaa baraha bulshada ku soo bandhigtay sawirada in SRK iyo Dilip Kumar ay kulmeen waxayna soo raacsiisay qoraalkan. SRK Shah Rukh Khan ayaa soo booqday Dilip Kumar fiidkan xilli Dilip xaaladiisa ay aad u soo wanaagsanaatay mahad Alle u sugnaatay. Dilip Kumar haatan da'diisa waa 94 sano jir waxaana Bollywoodka looga yaqaan boqorka murugada maadaama afalaan jecel oo aad u murugo badan uu sameyn jiray waayihiisa dahabiga ahaa. SRK asagana wuxuu caan ku ahaa 25 sano ee la soo dhaafay magaca boqorka jaceelka maadaama uu sameeyay afalaan hirgalay. daawadayaal waxaana xusid mudan labadan jilaa in ay ku guuleysteen 8 jeer atooraa ugu fiican dalka Hindiya best actor. barnaamijkan waxaan idin socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. amaana Allah sidaasi nabadgelyo.